joognaa degmada Dacarta waan soo gaarsiinay raashin dhan 150 qoys raashinkaas oo ka mid ah raashin qaybinta aan ka wadnay gobolka Maroodijeex guud ahaan wajigiisa afraad ee hay'adda diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranku ay ugu tala gashay in lagu garab istaago dadkeena xaaladaha abaaruhu saameeyeen iyo dadkeena dayartaaba ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa hay'adda King Salman oo runtii deeqdan iyada soo bixisay hay'addaas oo wada shaqayn dheer la leh Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan hay'addeeda diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranka oo si joogto ah la shaqeysa xilliyo walba adagna runtii dadkeena dayartaa garab istaagta waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo runtii siyaasaddiisii ballanqaadkiisa u ahaa in la garab istaago dadkeena danyartaa xilli walba goor walba iyo gobol walba runtii annagoo fulinayna siyaasaddiisa oo hay'addani ay tahay hay'adda qaranka uga mas'uulka ah inay daryeesho dadkeena jilicsan waxaan uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranka inuu hirgeliyay siyaasadda madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiraxmaan Xandulle oo runtii iyaguna hawshan qaybta ugu weyn ku lahaa haddii noqoto qorsheynteedii qaadisteedii iyo qaybinteediiba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada Dacarta Mustafa Siyaad oo runtii ah gudoomiye mar walba hay'adda iyo institutionada kala dawladda xarumaha kala dawladda baahiyaha ka jira degmadan soo gaarsiiya oo runtii muddadii uu xilka hayay in badan degmada raashin ka wada qaybinay raashinkan ugu dambeeyna runtii waqti badan geliyay oo habeen iyo maalmo runtii aan ka saaxanin sidii deeqdan ay soo gaari lahayd degmada marka waxaan uga mahad celinayaa sidii wanaagsaneedu nolol shaqeeyay sidii ugu soo xulay dadkii u baahnaa ee xaq u lahaa inay gudoomaan oo runtii aan maanta halkan ku qaybinayno gudoomiyaha maaha markii ugu horeysay in degmada raashin ka wada qaybino hay'addu si joogto ah degmada ula shaqeysaa waxaananu halkan ka sheegaynaa in xaalad abaareed ay ka jirto degmada oo ay kala sameeyeen guud ahaan dalka xabaarta daran ee ka jirta iyo gaar ahaan gobolka Maroodijeex raashinkan aan keenayna ahaan raashin runtii ku filan degmada oo degmo ballaaran oo deegaano badan xukunta laakiin ka xukuumad ahaan waxaan insha Allah ballan qaadanayn degmada doorarka dhammaan soo kordhino runtii xaaladda abaartan aanu gaarsiino madaxdii naga sareysay ee degmada ka jirta waxaanan mar kale u mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo xogayaha iyo taliyaha booliska iyo sida wanaagsan ee nolol shaqeeyeen iyo dadka deegaanka oo mar walba dad si degan oo wanaagsan oo soo dhaweeya wixii loo keenana runtii si wanaagsan oo sharaf badan u qaata aad baa u mahadsantiin dhamaantiin maanta ay taariikhdu tahay 15kii bishii 7aad maalin Jimco ah waxaan joognaa degmada Dacarta oo deeq raashin ka guddoonay hay'adda Narford ee ka hortagga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranka deeqda raashinka oo dhan 150 qoys oo soo gaarsiiyeen degmada loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen iyo dadka jilicsan run ahaantii maamul ahaan waxaan ku dadaalnay sidii aan u gaarsiin lahayn dadkii ugu nugla ugu baahida badnaa degmada dadka abaaruhu saameeyeen كل 150 qoys waa tiro kooban oo dadkii ma wada gaari karto haddana si loo jabaa loo dhutiyaa intii la helay hay'aduna soo gaarsiisay waxaan ku dadaalnay inaan gaarsiino dadka u baahnaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaha hay'adda Narford keedka raashinka iyo isku duwaha gobolka Maroodijeex hay'adda Narford ka tirsan iyo saraakiisha kale oo runaantii aan wada shaqeyn dhow aan u leenahay oo had iyo jeer nagala shaqeeya dhinac kasta xagga haday noqoto xagga abaaraha haday noqoto xagga tababarada bulshada kala duwan ee degmada ku nool oo had iyo jeer garab taagan aad baan ugu mahadnaqaynaa inta ayinka badan waan idiga sugaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu Maxamuud Axmed Cilmi Wacays degmadu waa degmada Dacarta waxaanu ugu mahadnaqaynaa dawladda Somaliland iyo hay'adda Salman ayaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa deeqdan soo gaarsiisay